Saaxiibadana daawanayo waxaan idiin soo gudbin doonaa 10 magaalo ee ugu horeeyay Afrika. Mid ka mid ah 10kaas magaalo waxaa leh Soomaaliya. Afrika waxay ka mid tahay meelihii ugu horeeyay ee bini'aadamku ugu dego magaalooyinka ay ku abuurmeen. Taariikhyahanadu waxay sheegayaan in magaalooyinkii ugu horeeyay ee Afrika ay ka abuurantay in ay saldhig u noqdaan ganacsiga caalamka iyo sidoo kale ilbaxnimada intaba. Meelo badan oo ka tirsan dunida ayaa looga soo safri jiray loogana adeegso doono jiray safarada qaarna waxyaabaha ay ahaayeen kuwo ku saleysan faafinta diinta Islaamka. Kuwan waa 10kii magaalo ee ugu qadiimsanaa qaaradda Afrika. Benin oo kaalinta 10aad kaga jirta waxay ku taallaa dalka Nigeria. Waxaa la aasaasay waqti lagu qiyaasay taariikhdu markay ahayd 300 BC dhalashadii Nabi Ciise ka hor calayhi salaam. Baaxad ahaan waxa ay la eg tahay 1204 kiiloomitir oo laba jibaaran. Shacabka ku nool tiradooda waxaa lagu qiyaasaa 1.5 milyan oo ruux. 9 magaaladan waxaa lagu magacaabaa Alexandria. Waxay ku taallaa waddanka Masar. Waxaa la aasaasay taariikhdu markay ahayd ama ay ku beegneyd 332 BC dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Waxay ku fadhisaa dhul baaxadiisu u leegyahay 2679 kiiloomitir oo laba jibaaran. Shacabka ku nool tiradooda waxaa lagu qiyaasaa 5.2 milyan oo ruux. Magaalada 8aad waxaa lagu magacaabaa Aksum. Waa magaalo ku taalla dalka Itoobiya, gaar ahaan dhinaca waqooyi. Waxaa la aasaasay taariikhdu markii ay ku beegneyd 400 BC dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Baaxad ahaan waxay leeg tahay 1.25 milyan kiiloomitir. Shacabka ku nool tiradoodu waxay gaaraysaa 66,800 oo qof. Magaalada 7aad waa Benghazi. Waxay ku taallaa dalka Liibiya. Waxaa la aasaasay taariikhdu markii ay ku beegneyd 525 BC dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Dhulkeeduna waxa uu leegyahay ama lagu qiyaasaa 314 kiiloomitir oo laba jibaaran. Tirada shacabkeedu waa 631,555 ruux. Magaalada 6aad waxaa lagu magacaabaa Constantine. Waa magaalo ku taalla dalka Algeria. Waxaa la yeegleelay taariikhdu markii ay ku beegneyd 600 BC dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Dhulka ay ku fadhiso baaxadiisa waxa uu leegyahay 231.6 kiiloomitir oo laba jibaaran. Dadka ku nool tiradoodu waxaa lagu sheegaa 464,219 ruux. Magaalada 5aad waa Tripoli. Waa magaalo madaxda dalka Liibiya. Waxaa la aasaasay xilli lagu qiyaaso 700 BC dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Dhulka ay ku fadhiso baaxadiisu waa 1,507 kiiloomitir oo laba jibaaran. Tirada shacabka ku nool waa 3,072 milyan oo ruux. Magaalada 4aad waa Tangier. Waa magaalo ku taalla dalka Morocco. Waxaa la aasaasay waqti lagu qiyaasay 800 BC dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Dhulka ay ku fadhiso baaxadiisu waxa uu leegyahay 116 kiiloomitir oo laba jibaaran. Tirada shacabkeedu waa 947,953 ruux. Magaalada 6aad waa Berbera. Waa magaalo ku taalla Soomaaliya, gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano Jamhuuriyadda Iskeed Madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. Waxaa la aasaasay xilli lagu qiyaasay 1000 BC dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Magaalada 2aad waa Annaba. Waa magaalo ku taalla dalka Algeria. Waxaa la aasaasay taariikhdu markii ay ku beegneyd qiyaastii 1200 BC dhalashadii Nabi Ciise ka hor. Baaxadda dhulka ay ku fadhiso waxaa lagu qiyaasaa 49 kiiloomitir oo laba jibaaran. Tirada shacabkeedu waxaa lagu qiyaasaa 464,740 ruux. Magaalada 1aad waa Luxor. Waa magaalo ku taalla dalka Masar. Waxaa la aasaasay xilli lagu qiyaaso 3200 BC dhalashadii Nabi Ciise ka hor calayhi salaam. Baaxadda dhulka ay ku fadhiso waxaa lagu qiyaasaa 416 kiiloomitir oo laba jibaaran. Tirada shacabka ku nool magaaladaasina waa 328 milyan oo ruux. Waadna ku mahadsantihiin sida aad u daawateen. Sii faafiya si saaxiibada kale uu sii gaaro. Waana ku mahadsantihiin.